بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد walaalayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aan ugu talagalnay inaan isku xusuusino sidaan uga faa'iideysan lahayn bisha barakeysan ee Ramadaan labadii xalqadood ee xalqadan ka horeeyay waxaan kaga soo hadalnay mufattiraatu siyaam maartay soomka waxa buriya ama jabiya afar qaybood baan soo tilmaanay afartaas qaybood aljimaac inzaalul mani al-akl wash-shurb iyo ma bimacna al-akl wash-shurb afartaas waxay ku jiraan labadii xalqadood hore xalqadan waxaan sii wadi doonaa waxyaabihii qofka ka jabinayay soonka ama ka burinayay qaybta shanaad waxa weyn ikhraaju dami bilxijaama qofka in dhiig laga yani la toobo oo dhiig sidaasi looga qaado maxay xijaamadu dhiig badan baa qofkii yani jirkiisa laga laga nuugaya ama laga soo saaraya marka dhiiggaasi badan oo laga soo saaray qofkii waxay u keenaysaa dacfi iyo taag darri bay u keenaysaa marka xijaamadu waa soonka ayay burisaa sida nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay afdara alxaajimu walmaxjuum qofka yani wax toobaya kan la toobayaba way afureen marka qofna yuusan qof toobin qofna yaan la toobin marka bisha ramadaan lagu jiro toobiki iyo wixii lamid ah loo dhigto bisha ramadaan wixii ka dambeeya marka arintaas iyadana waxa weeye dhiiggaasi badan ee qofka ka baxaya oo ma aragtay uu la daciifayo yani waxay keenaysaa in uu markaa qofkaasi soonkii uu ka buro wey inuu soonkii uu ka buro waxaa lamid ah haddii qofku dhiig ugu tabaruco dad dhiig baa laga shubay badan masalan litir ama nus litir ama dhiig markaa qofkii dacfi ku daciifnimada oo yani ku dareemi karo dhiiggaasi laga qaadayo ee laga shubayo soonkii ayaa markaasi ku jabay laakiin dhiig kale oo yani dhaawac gaaray uga yimid sida masalan goos laga saaray iyo muxuu ah dhaawac gaaray iyo ka noocaas oo kale dhiig noocaas ku yimid soonka kuma uu jabo qaybta lixaad waxa weeye التقيؤ عمدا qofka in uu ulakac isu matajiyo isaga in uu ismatajiyo ama sabab u noqdo inuu matago yani ma aha wax isaga ka xoog badiyay oo uusan yani ma aha haddii ay tahay yani wax isaga awoodiisa ka baxsan oo matag soo dhaafay kuma jirto laakiin in masalan shay uu ursado ugu talagalo inuu ismatajiyo ama farta afka geliyo si uu u matago haddii uu sidaas sameeyo soonkii waa ka jabay isagana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis saxiixa oo abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkoodba ay soo saareen wuxuu yidhi man daracahu lqayu falaysa calayhi qada waman istaqaa'a falyaqdi qofkii uu soo dhaafo matag uu yani isaga aan sabab u noqonin qofkaasi qadlo korkiisa ma aha soomkiisu waa sax laakiin qofkii ismatajiya isaga waa inuu soo qadayo maalinkaasi soonkiisii waa uu jabay wey qaybta ugu dambeysa toddobaad waxa weeye khuruuju damu lxaydi wannifasa yani wannifaas khuruuju damu lxaydi wannifaas yani nifaaska iyo damu lxayd waa dhiigga caadada ah ee haweenku ay helaan bil walbaba nifaasna waa dhiigga dhalmada ee ma aragtay haweenku markay dhalaan ka yimaado wey haddii labadaa dhiig ay yimaadaan haweentii soomaneed soonkeedii halkaasuu ku jabay marka waa in ay maalinkaasi soo qadaysaa xataa haddii iyadoo yani 5 mirar ama 2 mirar ka hartay qoraxda dhicideedii uu yani ku dhaco waxa weeyaan waajib buu ku yahay inay maalinkaas soo celiso maxaa yeelay maalinkii oon dhammaanin buu dhiigga ku dhacay maalinkaas inay soo qadayso ayay noqonaysaa marka haweenka markuu dhiigga ku dhaco yani nifaaska way soo qadlaynayaan soonka way soo qadlaynayaan yani ma aragtay laakiin salaadu ma ay soo qadlaynayaan sidaasna waa sida diinta ilaahay subxaana watacaala ayna bartay yani fudayd iyaga loo fududeeyey maxaa yeelay soonku isagu waa sahlan yahay salaadu yani salaado fara badan baa yani ay moogtahay dhaafay inta ay
xaydka ku jirto ama intay yani dhiiga dhalmada ay ku jirto. sidaa darteed yani qado lagama rabo. toddobadaasi qaybood aad iyo aad bay muhiim u yihiin in la ogaado, in ay yani qof walba sooman uu ogaado. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xalqadana. wajazakum allahu khayran calaa xusni istimaacikum. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.